maxkamadda degmadaasi Ceelaf Weyn ayaa xukun ku riday eedeysanayaal lagu soo qabtay dhuxul iyo waliba gaadiidka ay ku sideen maamulaha wasaaradda deegaanka iyo cimilada ee degmadaasi Ceelaf Weyn Cabdiraxmaan Xuseen Aadana iyo waliba isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo cimilada ee gobolkaasi Sanaag ayaa ka warbixiyay xukunadani iyo waliba eedeysanayaashii la xukumay ee dhuxushan sidey sanadkii dhamaaday gaarigaas waanu ku soo qabanay tuulada Garabcad halkaas waanu muddo ku xidhnaad 7 casho ku xidhnaad degmada Ceelaf Weyn iyadoo waqtigii ramaankana uu dhamaaday waxay maxkamaddu soo saartay gaariga ninkii waday lagu xukumay 6 bilood oo xariga iyo ganaax 1 milyan iyo maxay ahayd gaarigaasna lagu xukumay 3 milyan oo ganaaxa wasaaradda waxay soo saartay maxkamaddu waxay soo saartay kale in wixii eximid ee saarnaa ee kontrabaan uu sidayna wasaaradda deegaanku iyo isbeddelka cimiladu ay la wareegto sidaasina maxkamaddu soo saartay anaguna ka wasaarad ahaan waanu aqbalnay qaraarka maxkamaddu soo saartay waxaan halkan fariin uga dirayaa dhuxulaysatada maantaba wadinka arka dhuxulaysatoy ku biyacab waxaan dhuxulaysatada gobolka Sanaag meel kasta joogto u sheegaya inaad ka daysaan deegaankiina baabiinta iyo wax wadaan cid ku soo duushana waxa leeyahay in deegaankiina inta kula saaxiibaan dhaawaca iyo dhibta ay ku hayaan inaad kula saaxiibtaan maaha inta ka dilaalaya iyo ka dhuxusha shidaaya iyo ka aan islahayn waxba ka saaran iyo ka maalgelinaya intaba waxaanu leenahay warka jooga maanta waad aragtaan abaaraha iyo cimilada isbedelaysa dhamaanteed waxa ka usqareynaya waxa weeye bini'aadanka oo waxaas dhan sababaya marka waxaan fariin u dirayaa oo maalin walba u diraa warka daaya kii kasta la soo qabtaa maxkamadda dhexdeeda wuxuu kaga dacwooda ma aan ogeyn gabagabadii maayirka degmadaasi Ceelaf Weyn Maxamed Aadan Digaale ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay dhibaatada ay ku hayso dhuxulaysatadu deegaanadaasi degmada Ceelaf Weyn isagoona awaamir culus u diray gaarigan daba taagan 23 bisha 12aad sanadkiina dhaafay 2021 ayaa wasaaradda deegaanka iyo maamulka degmada Ceelaf Weyn oo kormeer shaqo jira ayaa soo qabtay maantana waxa ku dhacay xukun maxkamadda degmada xukuntay ka maamul ahaan waan ku bogaadinaynaa runtii qaraarka maxkamadda ay soo saartay waan taageeraynaa waxaan kaloo u sheegaynaa gawaadhida sidan oo kale dhuxusha uga ganacsata iyo dhuxulaysatada labadaba waxaan u sheegaynaa iyo cid kasta oo ka shaqeysa in cidii lagu soo qabto in sidaas oo kale uu xukun ugu dhici doono waliba cidii caadaysata waa loo sii labalaabi doonaa xukunka nin walba hadduu gaarigaagu banaanka ku joogay waxaanu baaq dheer ugu diraynaa gawaadhida dhuxusha qaada inay ka waantoobaan arrintaas hadday ka waantoobi waayaanna sharciga bay marayaan cidna looga indhaqarsan maayo walaa hebel walaa qabiil walaa cidnaba cid kasta haddaanu maamulka iyo wasaaradda nahayba annagoo iskaashanayna oo ciidamada waxa weeyaan jamhuuriyadda Soomaaliland ama booliska noqdaan ama military noqdaan kaashanayna waxaanu dhamaanta iyo diyaar u nahay badbaadinta deegaanka أحمد محمد علمي بوليس تي في Ceelaf Weyn.